waxaan halkan shirkaynaga jaraa'id u daaran yahay tacsi labadii sargaal ee lagu dilay gaar adag lagu dilay labadaasi oo xukumayay magaalada midna uu ku xigeenka booliska oo ahaa midna taliyaha ay jeesha oo ahaa waxaan sidaan horeba odagu u sheegay waxa weeye labada nin ee sargaal waxay ahaayeen laba nin oo xukuma degmada ay ahaayeen ha xukumaane waxaad moodaa in loo heshiiyey hadday oday tahay hadday cuqaal tahay hadday odayaal tahay hadday dadweyne tahay waa wax go'aan lagu gaaray in la dilo taasina islaamnimadu ma dhigayso waxa weeyaan kabacdi raggaas way soo ashkatoodeen madaxda booliska daba ka haysta markaana waxaan leenahay haddii arrinka dawladdu si degdeg wax uga qaban weydo annaguna gacmaha aarsada weyn lagu yaalaan waxa kaloo naga dhaxeeyana ma jirto ninkii raggii laayay ragga laayayna kooba loo garanaya waa la isgaranaya la isma garan waayo ilaa uu garanaya alla waan garanay waxaan halkan ka tacsiyadeynaa labadii sargaal ee lagu dilay shirqoolkii iyo jidgooyadii qorshaysnayd ee ka dambeysay xukuumadda uu hogaamiyay Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha oo jufadiisu ay dishay shirqoolkaasi oo loo dhanaa oo dawlad iyo deegaan iyo dadba aan loo kala xadhin maanta waxaan daawanayay inay lahaayeen ina kaahin iyo wasiirro kale ay lahaayeen wuxuu ka dhintay saraakiishaas waxay ka dhimatay qaranka saraakiishu qaranka kamay dhimanin waxay ka dhimatay beesha Samaroon bay ka dhimatay beesha Gadabuursi bay ka dhimatay gobolada galbeedka Soomaaliland bay ka dhintay Soomaaliland qaran ma aha waa qabiilo isku tagay weeyaan anagu ma aaminsanin inay qaran tahay Soomaaliland waa qabiilo ay waliba ku kooban madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha kaliya qabiilo ku kooban weeyaan ma aha qaran Soomaaliland waxa weeye maanta halkan hadal badan inooma yaalo inaan iraahno ujeedada halkan aan soo fadhiisanay waa taasida hawl badan baa noo taala dadweynaha Samaroon iyo qoomiyadda Samaroon waxaan leeyahay ama waynu idlaan ama waynu adkaan oo dad jiraynu ahaan raakiishaasi anagu ma aha tii koowaad ee dhacday maanta hore u dhacday oo lagu gowracay halka rag badan waa la ogaa halkii xaaladdu ka taagneed waa la ogaa waxa weeyaan markaa waxa go'aan lagu gaaray de shalayba wax meesay maanta wax sameyn maayaan ee hal laayo hal gowraco ragga taasina noqon maysano leenahay marnaba noqon maysano dhici maysan hadii la yiraahdo waxaanu leenahay anagu dadayaan nahay odayaasha saraakiishaasi halka lagu laayay shirqoolka lagu laayay ee ina kaahin koowa ka aha isaga kooka ina kaahin sababta ninku markuu qayliyo uu yiraahdo war dhibtaas ay haysay soo gaara cida maamusha waa inay waxa weeyaan ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha weeye waxaan leenahay anagu war waxa weeyaan waxa dhacay waxaan dul qaadanayno maqlayna ma nimanka dhibta geysana waad garanaysaa inay waa xigtadaadii waa tolka hadii aad si u dhaqsaha badan adigu keen weydo cid kale oo dhamayna waliba hadaad keen weydo deedna wasiir ahaan maysid adiguna wasiir ahaan maysid soomaad garin wasiir ahaan maysid waxa weeyaan burca iyo waxa weeyaan oogna la nooga warrami maayo waxaanu leenahay anagu maanta aanu ognahay haddii sida u dhaqsaha badan loo keeni waayo nimankaas oo sida ugu dhaqsaha badan loo keeni waayo oo lana soo hor joojin waayo oo waajibkay ka gudan weyno de wixii ka dhaca inaga ka masuula ilaahayna inagu naga xisaabtan haduu ilaahay raado waxaan leenahay xukuumadda waa nabadgelyo dad uu qof uu darma cid kasta danba u tahay qof kasta nabadgelyo waa u dan war haddii aad nabadgelyo doonaysaan inay dhacdo keenan leenahay nimanka hala noo keenan nimanka haddayna ahayn waa niman wuxuu de ilaahay u gooyay leedahay waxaan